haddii aad ka mid tahay dadka wejigooda ay saliidda ku badan tahay kaligaa ma ahan ee anigaba kula mid ahay. Muuqaalkan ayaan kugu sharxayaa waxyaabaha sababo in wejigaaga ay saliidda ay ku badato iyo sida ugu fudud ee aad isaga daweey kartid. Balse waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like ii saarto sidoo kale aad la wadaagtid saaxiibadaada si ay ayagana ugu faa'iideystaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواء دمان صاحبيال. سياد مقال كورديع سكسو عرقتيبو. مقال كان وحرا إنا كشرحو وجيجا إي سليدة كوبادان تاهي أما وحلو يقانا أويل فيس. مركا هدي عاد كميد تاهي دادكا نوعان أما عاد قرني سيتقف وجيجيس إي سليدة كوبادان تاهي runtii aniga ayaan ka mid ahay dadka noocan ah talaabooyinka aan raacay ayaan muuqaalkan kugu sharxi doonaa. Marka hore waa maxay wajiga ay saliidda ay ku badan tahay ama waa maxay wax loo yaqaan oil face. Marka hore jirkeena sida caadiga ah wuxuu leeyahay qanjir loo yaqaan sebaceous gland. Qanjirkan wuxuu soo daayaa saliidda jirka. Gaar ahaan qanjirkan wuxuu saliidda ku soo daayaa wajiga iyo qaybaha kale ee jirka. Saliidda wajigeena uu soo saaro sida caadiga ah waxa loo yaqaan sebum. runtii faa'iidana way noo leedahay si la mid ahna khasaaro way noo leedahay. Haddii aan ku hormaro faa'iidooyinka ay noo leedahay saliidan waxaa ka mid ah waxay ka hortagtaa ama waxay joojisaa wax loo yaqaan wrinkles oo ah duuduubka ama laalaabadka uu maqaarka uu sameeyo. Marka dadka noocan ah inta badan wajigooda kama muuqato da'da oo sababtoo ah saliidan waxay ka hortagtaa qofka inuu u ekaado ama wajigiisa uu u ekaado qof weyn. Si la mid ah dadka nooca dry skin-ka ah ama wajigooda uu qalalan yahay inta badan ayagoo da'dooda ay yar tahay ay wajigooda da' badan ay ka muuqataa ama qofkii inuu weyn yahay wajigiisa laga dareemaya. Sababtana waa in wajigooda uu saliidda ay ka maqan tahay oo saliiddaas waxay baabi'isaa ama ay ka hortagtaa saa sheegnay wrinkles waxyaabaha loo yaqaano. Haddii aan u gudbo khasaarada ama faa'iido darrada ay noo leedahay in wajigaada ay saliidda ay ku badato waxaa ka mid ah number 1 inuu wajigaada yeesho finan. sidoo kale number 2 waxaa dhici karto inuu wajigaada yeesho xaare iyo ugu dambeyn number 3 waxaa dhibaatada kale ee wajigaada kala kulmi kartid in uu wajigaada yeesho duldaleelmo ama dulduleel madmadow ah. Marka khasaaradaasna way noo leedahay saliidda wajigeena ay soo saarto faa'iidadaasna way noo leedahay. waxaan u gudbi doonaa qaybta xigta oo ah maxaa sababo ama maxaa keeno wax loo yaqaan oil face ama wajigaada inay saliidda ku badato maxaa keeno. runtii waxyaabo badan ayaa keeni kara in wajigaada saliidda ku badato. waxyaabo qaarna adiga ayaa sabab u lahaa karo. waxyaabo qaarna waa waxyaabo adiga sabab u lahayn aadan ogeyn. waxa ugu horeeya number 1 inay isbedel ku yimaadaan hormoonada jirka. gaar ahaan qaybtan waxay qosaysaa dumarka. gaar ahaan dumarka xilliga markay uurka leeyihiin markay xilliga caadada oo kale haddii isbedel ku yimaado hormoonada jirkooda wajigooda waxay ku arki karaan saliid aad u badan. sidoo kale waxyaabaha kale ee sababi karo waxa ka mid ah dawooyinka loo yaqaan contraceptive drugs oo ah dawooyinka ka hortaga uurka ama dawooyinka loogu talagalay in lagu kala fogeeyo carruurta. sidoo kale number 3 waxa keeni karo stresska ama walwalka badan. sidoo kale waxa keeni kara number 4 genetics ama dhaxal inaad ka dhaxashid qof kamid ah familygaaga aabahaaga ama hooyadaada. sidoo kale ugu dambeyn number 5 waxa keeni karo in wajigaada saliidda ku badato dawooyinka lagu qurxiyo wajiga. gaar ahaan dawooyinka ay dumarka isku cadeeyaan ama ay midabkooda ku bedelaan. haddaba su'aasha aad weydiinaysid waxa weeyaan sideen ugu hortagi karaa ama sideen iskaga ilaali karaa in wajiga saliidda ku badato. waxyaabaha laga rabo inaad iska ilaalisid oo run ahaantii aniga tijaabiyay waxa ugu horeeya inaad gabi ahaanba ka fogaatid caanaha. sidoo kale number 2 inaad ka fogaatid cuntooyinka la shiilay. sidoo kale waa inaad ka fogaatid number 3 cuntooyinka ay ku badan tahay saliidda ama cuntooyinka ay ku badan tahay dufanka. sidoo kale number 4 waxa ugu muhiimsan ee laga rabo inaad ka fogaatid waa inaad ka fogaatid saabuunka. waad weydiinaysaa sidee saabuun la'aan u joogi karaa doctor. waxa u joogi kartaa saabuunka inaad gabi ahaanba ka ilaalisid wajigaaga inaad ku dhaqdid wax saabuun ah. haddii aad rabtid inaad wajigaaga dhaqdid waxaa isticmaali kartaa waji dhaqe ama wax loo yaqaan face wash. qaybta dambe ayaan kugu sheegi doonaa nooca ugu fiican iyo nooca aniga aan isticmaalo. waxaan u gudbi doonaa qaybta ugu muhiimsan muuqaalkeena oo ah sidee loo daaweeyaa wajiga ay saliidda ku badan tahay. run ahaantii wajiga saliidda ku badan tahay dadka way ku kala duwan yihiin qaabkii u daweeyaan. balse waxaan kuu sheegi doonaa 3 qodob oo muhiim ah oo haddii aad raacdid aan hubo inaad isbedel fiican ku dareemi doontid. qodobka koowaad waa inaad isticmaashid waji dhaqaha loo yaqaan oil control
ama oil control face wash si shaashada ugu jeedidbo waji dhaqayaashan face washeska ama waji dhaqayaasha shaashada kaaga muuqdo waa noocyo kamid ah kuwa ugu badan ee la isticmaalo sida shirkadda loo yaqaan Niva, Cuticle iyo Bonis saddexdan nooc baa isticmaali kartaa waji dhaqayaashan loo aan ku sheegay oil controlka waxay ka hortagaan in uu qanjirkaas aan sheegnay sebaceous glandka inuu soo saaro saliid badan marka waxay xiraysaa duleelka uu saliidda ka soo saaro qanjirkaas ani ahaan waxaan kugula talin lahaa inaad isticmaashid noocan loo yaqaan Bonis runtii waa nooc ugu fiican oo waji dhaqa ee la isticmaalo aniga ayaan tijaabiyay muddo 5 sano iyo ka badan boo isticmaalaa shirkaddan waxaan kugula talin lahaa marka inaad noocan isticmaashid subaxii markaad hurdada ka soo kacdid inaad wajigaaga ku dhaqatid iyo habeenkii markaad sii seexanaysid haddii aad ka badan isticmaali kartid way ka fiican tahay sidoo kale waxaad isticmaali kartaa wax loo yaqaano Activis face mask oo ah scrub ama face mask diyaarsan oo aad ka heli kartid meelaha cosmeticska lagu iibiyo supermarketyada iyo wixii la mid ah sidoo kale ugu dambeyn number 3 waxaad isticmaali kartaa wax loo yaqaano blotting paper oo ah warqad sida softiga kale u diyaarsan oo loogu talagalay in wajiga ka soo nuugto saliidda ama dufanka wajiga uu leeyahay si shaashada ugu jeedidbo blotting paperka warqadda la dhaho sidaan ayaa loo isticmaalaa wajigaaga ayaad ku masixaysaa adigoo ka soo bilaaba xagga sare ilaa xagga hoose ayaa wadaysaa marka blotting paperka qaabka u shaqeyso wajiga ayaa wixii ka soo nuugaysaa saliidda ku jirto ama dufanka wajiga uu leeyahay qaababkaas kala duwan ayaad ku daweey kartaa wajiga iyo saliidda ay ku badan tahay saan sheegnaybo waxaad iska ilaalinaysaa qodobada aan soo sheegay iyo dawooyinka aan sheegay oo isticmaalaysaa waan hubaa inaad isbedel dhab ah dareemi doontid anigoo kaaga mahadcelinayo daawashadaada muuqaalkan waxaan rajaynayaa muuqaalkan wax un ka faa'iideystay ha iloobin inaad muuqaalka like saarto sidoo kale aad la wadaagtid muuqaalkan qof aad isleedahay uu ka faa'iideysan karaa ama wajigiisa iyo saliid ilaadahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.